تسجيلات أمناء هواء تقدم ولأول مرة صوت مع صورة لتفسير القرآن الكريم للشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم هوينكم حرث وبير بني لكم إنك عليه إلهي وبير كدغاي oo macnaha taranka maadaama ilmuhu ku beermaan sida dhulka beerta inuu ugu baxaan geedo u noqdaan ayaa haweenku waxa weeye waa meel caruurta ku beeranta ilaahay ugu talagalay marka nisaa'ukum bal haweenkiinu xarfun lakum waxa weeye waa beer lakum inay ismaatay weey fa'tu harsakum anna shiitum fa'tu utagaaliya harsakum beertina li anna shiitum kayfa shiitum siyaabunta وقدموا لأنفسكم نفتي لنا أهر مرية أو خير أهر مرسدة وحانا كمل خير كل أهر مرسدة هايو بدكوا إلي أذكار أخستان ورسولك وحا اللي صلى الله عليه وسلم وهي يرغبكم مرسل آلهي إيه كيف أدوي أخي الدعاء أهيد اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره شيطان بريء ما سبيل الله قدر إلي الماء ورمان وحير شيطان مردئه ومضى يوبي مركب وقدموا لأنفسكم نفتي لنا خير أهر مرسدة وحا كمل لي إن عباسيري ودعاء الآخر هايو مركب غفر إيه الكسو دون هايو إنو أبي واتقوا الله الله نكبغ واعلموا وقال أنكم إذنكم ملاقوه إلى الدين ملاقوه كو الله لكم مدونا وبشر المؤمنين مؤمنين وبشاري الله رميسا ووحو البؤي سمين هيان إله شرائس وفجنية ولو حتى القرب والمرفع الباب شرعيه ودغن فيها هوين فردغ ما حتى ويهي وح إله رالك وعهين سلي وحو الله تعالى وحي دونا لتكفل هاي واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه إلى الدين كو الله لكم ميح وبشر المؤمنين مؤمنين وبشاري ولا تجعلوا الله نهكي لمننا لي عرضة لأيمانكم مد معناها كبد بن داره نما وأرنينا واحد كان مسلمين إن هذا داربان مري ما دام دار مري واحد مسلمين هاي يعني عرضها كده لنا الله بلي أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الله إن الباهر نوصل إنسان وخير سميسان وتتقوا الله نكبقلان وتصلحوا بين الناس تذكروا إصلاح إنسان الله سبحانه وتعالى أيام داركم مري يسأل كيف تجين بالي هو يسألني waxa la doonayaa qofka haduu arrin sameeyo ku dhaarto oo ogaado wax ka khayr badan rasuulku wuxuu yiri man halafa ala yaminin faraa ghayraha khayran minha oo qeyrkeeda ka khayr badan arko faliyati alladhi huwa khayr shayga khayrka ahaa hasan yaali wal yukafir an yaminkiisa dhaartiisa kafaaraha ka bixiyo kafaarada qadarkeedana suuratul maa'ida lagu sheegi doonaa inta la bixinayo oo kafaarada dhaarta ah suuratul maa'ida ayaa lagu sheegayaa ikhtiyaar inay tahay saddex arrimood baa mid sameynaysa laakiin marmarsiyaha uga dhiganina hadii ha oranina maartay arrintan khayrka ma sameeyay midna laba qof ka dhaaranayo inuu la hadlo dhaar buu ku maray wallahi baan hebel weliga la hadleen bii arrinta ilaahay raalli ka yahay ma aha ilaahay wuxuu doonayaa in acmaasha birriga oo dhan la sameeyo ay ka mid tahay muslimiinta isku saafiyiin isticiliin islaahana ilaahay waa jecel yahay dadka inay islaah ka dhaxeeyo oo wanaag ka dhaxeeyo arrinta marka ilaahay jeclaabo qofka wuxuu leeyahay ma sameyn karo dhaar baan maray buu leeyahay marka la diidayaa waxa la walaa tajcalullaha allah ka yeelina urdatan من معناها أرضكوا أو مارسي مانع فأو كجبا لإيمانكم داره ميزالي أن تبروا إلى البحر الناس الإنسان وتصدقوا وتصلحوا بين الناس تاج الله سبحانه وتعالى من كل أرضها كلينا لي واحد الدولة هي أرنتي خير كائنة سنسد أو مركز كفارة بحسن معه والله الله أنا سميع ورب سميعة أو مغلية ما صحة فهذا اللسان داره إلهي سبحانه وتعالى أغواشي ولو مغلية حالنا ويا حالين إنه صور دم بأوجي هاي واحد إذا قرصوني واحد مجتمع سام بالله وأوجي لا يؤاخذكم الله إذا قبل ما يذلي في اللغو في أيمانكم اللغو أو دارته داره النبلي اللغو إلهي سبحانه إذا قبل ما يمرك دارتان دار عن قلبك كثيرين اللغو أو أفكم كسر بحثي فإلهي إذا قبل ما يلي ويلي وهذا الكسر النيد أن كسر قوين qofka afka ma dad baa afkooda markasta wallahi dhaar isaga mara oo sida nimanka gamoonka ridayo kale wallahi waa cabsidi iyo wallahi baan heel iga badaneen iyo waxyaalahaas kale oo waxa la laqwi oo qofka niyad aan ka jirin dhaar uu soo la qasdeen taa waxa la Allah idin qaban maayo walakin yu'aqidukum waxa idin qabanaya Allah oo idin ku qaadaya bima kasabad qulubukum waxa qulubtuna ay kasbato baa idin qabanaya taa ilaahay in kula xisaabtamaya oo inaad wixii fulisaan iyo inaad kafaara dhigtaan waxa ka dhaxeeyo والله اللهنا غفور ورب غفور وأكثر بدن حليم أهو ذوقال بدن مركز لغو اليمين بالي هذا لغو اليمين
dadku kafaaro lagama doonayo laakiin wixii go'aan oo qofku yiraahdo wallahi baan ku dhaartay waxa aan marna yeelin haduu yiraahdo waxa uu marka ka dhaartayna ay yihiin wax laga fiican yahay inuu ka dhaarto wuxuu yeelayaa wixii waa sameeynaya kafaaro liidaya ma للذين يؤلون من نسائهم كوا كدارن هيا لير من نسائهم هوينكودا وارنتان مسألة إيلاء باليرها إيلاء قصة مثل هوين قعريسينسا من بهوين قعريسينسا marka wuxuu leeyahay dhaarku mar haya warigiis inuu san haweenkaas haweenaysan ma furiga iska joogto deerto wax haweenaha haweenka waxa looga baahdo dhan kaaga baahan maayo mana doonayo uu dhaarku mar haya qofkaas marka oo arinta dhaarku maray qabla islaam waxa weey wuxuu doono qofku sameeyay laakiin islaamku fiirin arinta waa la xadidiyay waxa la yiraahdaa 4 bilood baa fursad leedahay leeyahay 4 bilood soo badan kadib lilladina dhulka waxa uu sugnaaday baa la yiri kuwa yuuluuna ka dhaaranay من نسائهم هوينكودا waxa u sugnaatay leeyihiin bal tarabbusu inay sugaan 4 ashhur 4 bilood 4 biloodna waa ku filantahay in carab uga baabaado marka ay soo noqdaan reerkooda soo noqdaan fayufa oo haday soo laabtaan oo dabeecadii hore dhaqankii hore oo wanaagsan ay soo laabtaan fa inna allaha allah ghafuur wa rabbi ghafuur ah rahiim rahmad badan wa in azamu talaqa haday talaqa go'aansadana فإن الله سميع ورب سميعه مقله عليم أو أحواشه ذنكرنا marka halka in azamo talaaqadaas laba sida la yiraahdo culimada qaar waxay yiraahdeen marba haday 4 bilood dhamaatay waa iska furantahay furin lama baahna sida Abdullah ibn Mas'ud iyo Ali ibn Abi Talib laga warinay marba haday 4 bilood maartay gaarto waxa weey bas waa wuxuu go'aansaday inuu furiinku doorto macna gabadha ama waa inay furantahay oo 4 bilood kadib ama waa inay furantahay ama waa inuu soo noqday bale wax kale oo ka dhaxeeya malaha marka mar hadduu soo noqon waa tii kale waa furantay marka furinka aan soo noqon hayaa bani tabliiqa waahida hal dalqad bay noqonay waagi waxa dhacday Abdullah ibn Mas'ud sanadkiisii waxa dhacday leeyahay nin inuu haweentii doonay marka waxa la yidhi marka uu ka dhaartay inuu weligiis mar dambe uu san wax ka soo doonan safar buu aaday safarkii jaadkii uu aaday waxa lagu xukumay 6 bilood 6 bilood buu soo noqday inkaas uu culimadu weydiiyeen su'aal aadin marka waxa la yidhi haweenta baa inay ka noqoto biskii oo iyadoo uu ka xisaabtay wuxuu yiri saasa jirta ma oo ina hadda kadib markaas diyaar moota ina iskursano markaa ogolaasay markaa meher kala dhig sidaas dhacday marka culimada qaarkood u arkayeen saxaabadii iyo tabiiciintii iyo saas ku fikireen qaarna waxay yiraahdeen 4 bilood marka la gaaro xaakimka muslimka ama kala furay oo hadii macna isoo furi waayo oo isoo dalaaq waayo 4 bilood marka la gaaro xaakimka kala fasaxay kala geenaya laakiin macna xaakim baa loo baahanayaa ay leeyihiin macna haduu xataa isoo dalaaq waayo xaakimna meesha joogay أنا أيوة حل أمها يان مثل ليش حليهن حاكم كمسلم كأبي سارن شهديه ودلاق وين حاكم كلا فروع كلا عيري يلابس ويوجد صار دمان وعدة إحساباتنا مركا وقت كانوا كلا وحى مدابة يوسيدا وإن صايغا هوري مارك مناسب فيها وقف ما دام حاكم إسلام نسلي حديث مركا وقت كنا ولي اللي بكسر لما أورن كرما وقف عن ولي يعني غير في عن لا نقدر نسيت عن مارك لا نفرين الإسلام كمرة مرحلة معها مركا مربى هذه 4 بلاد وقفك انت كدارto 4 bilood ay ku gaarto oo soo laaban way way soo go'aasay ma balaaqay taabo rajaxaya al-imam Abu al-Ala al-Mawdudi kitabka leeyahay xuquuq az-zawjayn inay saas tahay wal mudallaqat haweenka mudallaqaadka oo la furana yatarabasna waxay sugahayaan baa la yiri anfusihina naftooda la sugahayaan nafyaashooda waxay la sugahayaan 3 qur'in saddex macnaha qur'iga waxa la yiraahdaa xaydka la yiraahdaa ama ظهري قال يراها labadaba waa la yiri oo dadkii saxaabadii waa saas u kala arkay marka hadii la yiraahdo qur'igu waxa weeye waa bahaarada hadii la yiraahdo waxay noqonaysaa bahaarada lagu furay marka horeysa koow la oranaya xayd markii ina bahaarada labaad baa laba la oranaya tan saddexaad markii dhamaato oo xaydka kala bilowdaba waa u dhamaanaysaa ciidadeedii hadii la yiraahdo waxa la tirinayaa xaydkii dhiiga la tirinaya hadii la yiraahdana waxa weeye ظهري horey ku kala tagaan xaydku soo xiga oo imaanaya koow ah kan labaad kan saddexaad markuu dhamaado way noqonaysaa marka kaas xoogaa dheer marka waqtiga loo fiiriyo rasuulkana waxa la yiraahdaa xadiis wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam gabar wuxuu ku yiri salaad iskida ayyaam iqraa'ika mararka maartay qur'iga ugu jirtid marka waxa laga qaatay in xaydka ay tahay sida daraaddeed waxa raajixsan marka in xaydka la xisaabiyo oo xaydka la tiriyo iyadoo ra'yiga kale la jiro oo madhab kale oo culimo kale ay raacsan yihiin ظهري in la xisaabinayo haweenka marka la furaa leeyahay waxa laga rabaa saddex maartay yaani xayd inay sugaan oo intaas waa inta ciidada la yiraahdo la tiriyo
muddada dhexdeeda marka ninkii waa kusoo laaban karaa iyadiina waxba ugama xirna macnaha oo iyadii shar suruur laga dooni maayo hadduu isagu mar yidhahdo waa kusoo celiyey oo kusoo laabto hadal ku yidhaahdo ama ficil ku sameeyo haweenkii bay noqonaysaa macnaha sideedii hore kusoo laabanaysa walaa yaxilu lahunna haweenkaana uma xalaal aha baa la yidhi oo la furay an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu waxa allah ku abuuray fii arxaamihina rixmadooda haddii allah wax ku abuurayna inay qariyaan ma ahan bale in kunna hadday yihiin yuumina kuwa rumaysan billaahi allah oo waxidaya walyawmi alaakhir maalinta aakhirana rumaysan hadday yihiin oo waxaa jirtaa la yidhahdaa haweenka marka la furo hadday diin leedahay allah subxaana watacaala bay ka baqaysaa oo wax iyada ugu jira maaragtay uurkeeda qarin mayso laakiin markii diintooda ay ducfi ku jiro waxaa la yidhi furiinkaasaa la foolxun markaa waxay jeceshahay haddiiba inay reer yeelato kale markaa waxaa laga yaabaa haddii uur yeelatana ciddadaa dheeraanaysa ilaa ilmaha ka dhashaan ciddii ku jiraysaa ninkii horaa maaragtay biilahayo isaga hadduu raba soo celinayo marka si arrintaa uga xorooday qaranaysaaba in uur leedahay si maaragtay saddex xayd kadib qiyaastii 3 bilood kadib ay markaa iskaga madax banaanaato markaa waxaa laga yaabaa in qof kale ka guursato haddana iyadoo uurka ugu jireen taas marka waxa ifsaad weeye dadka nasarkooda isku darma ayaa ka imaanaya marka qof allah rumaysana taa waxa way kama suuroobay waxa way dadka xunxun oo ahlu nifaaqa iyo faasiqaadka way waxa sameeyay marka ilaahay wuxuu yiri walaa yahilu lahunna an yaftumna ma khalaqa allah uma xalaal aha bal wana banaana inay qariyaan ma khalaqa allah waxa allah ku abuuray si arxaamihina rixmiyadooda in kunna yu'minna hadayhin kuwa rumaynayo waxidaaya billahi allah wal yawm al aakhir iyo rumaynayo maalinta aakhirana hadayhin bal وبعولتهن يعني أزواجهن بل إنما كولانا أحق وحق لها لبردهن إن سوء ليان في ذلك وقت لا تحدث إدد أنت الأسرة إن أرادوا هذي دوان بارك إن أرادوا إصلاحا هذي إصلاح دونهن وناقوا ربان وناق إن صدق معنا وحل وكل فيه وحمان سأهم ناس إن قبح هذي ديار ويهن فجأ أيال في عن إن سوء ليان بني ولهن وحين ليهن هوينك عليه ويأسرنا عليه مثل الذي عليهن وحكركود حقوق لغا دوناي oo kale bay iyaguna leeyihiin ninka kuleeyay labada dhinac waxa way xuquuq bal isku leeyahay ninkana waxa laga rabaa haweentana waxa laga rabaa bil macruuf si macruuf wanaag inay u leeyimaadaan haweenka waxyaabaha laga rabo waxa kamid ah ugu horeeya la yiri inay noqdaan xaafidaad inay noqdaan kuwa xifdiya fasalihatu qanitaatun xaafidaatu lil ghaib ilahi labada shardiba ugu waaweyn inay yihiin kuwa wax maqlahayaa leeymaanaha oo wixii macruuf la faro yeelahayaa وإسلام كله يقول النظام بوسمي إلا جامر قاتو سمي مجتمعين النظام بوسمي إلا جامر قاتو سمي إلهي سبحانه وتعالى مركز يقول الناس على قد جاي إلا جامر قاتو مركز هواين كصالحات كو إلهي أوه جاهزين وإسلام كإيتين إلهي رميسان إلهي إنه وحكيي وح إلهي سيدين على ظهر إيمان كريم كو رميسان ومناك ساعة وقانتات بالي وحي أضيعان بالي ومغلان معروف يلان حارانكم كما يلان لكن معروف يليان بالي حافظات لوايهين بالي وقوة واحد ديالي أنا حافظة شيء بورصة صندوق أيوة كانوا في المعنى هو يحل وقت الله وإيمانه سيرك الله شيء والله وإيمانه ملكنا وجود بيني مالك اللودي عن ملك وجود بيني نفس هذه إلى علينا يستمر كل يوم غيره يعني السياسة على وقت المعنى حافظات للغيب ومنك حتى مجلس هذا وين إلى ليان ويسكت حريه الموضوع عوضه هدي ما كمان أيش سماه البحر على أرنا يا هوينتي هو البحر سميتي هوينتي هو البحر الذي رحتي هوينتي هو البحر مجلس ولا كيا يا ميل البحر يستأثر والحماة مجلسنا والله هنا marka waxa la yiraahdaa inay magaciisa ilaaliso oo awlaadiisa ilaaliso oo maalkiisa ilaaliso nafteedana waa inay ilaaliso xaafidaad baa marka leeyahay xaafidaad lil ghaib labada arrimood waa laba arrimood lagu waajibiyay waana xuquuqda lagu leeyahay iyadana waajib bay ku yihiin ninkana waxay ku leedahay bal haweentu inuu macnaha siiyo marka meherki oo wax la siiyo oo la fuliyo loo fiiyo anay yiri waxa uu xaq badan ma istaxlaltum bil furuj wixii lagu xaalsaday haweenka marka waa in heerkii uu dhiibo haddana waa inuu nafaqo siiyo wax ku noolaan lahayd waa inuu siiyo oo bil macruuf ah lamana xadidin waxa la yiri laa yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha ilaahay nafna kuma kalifayo illa wuxuu siiyay mooyee yani qofkii waxaysana wax fiican hadda siiyo qofka waxayna wuxuu hayaa keenay taasna marka waa fuleedahay waxay kale ku leedahay inuu dulmin oo dulmin maartay oo fool xumay qabaxaka Allah ilaahay ku fool xumay inuu sabihin inuu wajiga ka darbaaxin yani waxa soo dhan waa reebin ayda iyo maarta darbaaxada wajiga iyo waxa soo dhan waa reebeen iyo maarta inuu kala eexdo hadii haweenku badan yihiin oo kale inuu dhinac isaga bato oo dhinac iska seexdo walba dhinac kale maarta uu qaybin cadaalad u qaybin waa xaraan marka xuquuqdaas iyadu leedahay walahunna iyo wax u sugnaaday oo ay ninka ku leeyihiin wax la mid ah wax iyaga laga rabo labada jaanib marka waa taas arrintaas la fuliyo oo ninkuna wixii laga rabay sameeyo haweentan wixii laga rabay sameeyo ayaa waxa la yiraahdaa xuduudda Allah la oogayo weeyma
iqaamatu xuduudillahi wey waa xuduud ilahi la ogay beydka islaamku marka wuxuu uga duwan yahay beydka jaahiliga ah sharaa'ic ku taagan yahay guriga islaamka haweentana sharci bay leedahay iyo xuduud ninkooda sharci xuduud buu leeyahay haddii marka xuduuddaas ayaan oogmi weydo maaragtay oo lagu tunto oo guriga noqdo guri fawda oo jaahiliya noqdo in la kala tagaa khayr badan in la joogo saasa diinteena baraysaa haddii la isku soo noqonayana waxaa la isku soo noqonayaa mar la isleeyahay xuduuddii baa lagu dhaqmi karaa wey xuduudda ugu muhiimsan ilaalintooda maa weli rijaali raggana waxaa usugnaaday calayhina haweenka korkooda darajatun daraja usugnaatay wallaahu casiizun xakiim darajada waxa weeye waa darajo ilaahay ku fadilay oo ah xagga maaragtay tafkiirka fikirka xaggiisa inuu uga horeeyo maaragta haweenta xagga awooddana inuu uga horeeyo sidaa daraaddeed baa isaga waxaa la yidhi wax bixida le nafaqeeda le maadaama ka xog badan yani alrijaalu qawaamuuna cala nisaa'i ilahi iyaa qawaamiin ah uga toosan baa layihi hogaaminta iyo talada bimaa fadala allahu waxa alla ku fadilay bacdahum calaa bacdin wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo bixinta ay bixinhayeen maalkooda le marka waa in ninkii marka adeecdo daacada marka ninka lagu waajibay inay adeecdo waa darajo marka ilahay ninka siiyey oo abuurista xaggeeda ka imaanaysa marka taa micneheedu ma aha haweenka ilaahay subxana wataala inuu xaqiray ma aha ee waxa weeye abuuristii baa loo kala duway maadaama wadiifada iyo shaqaday qabanayaan kala duwan yihin nimanka waxaa lagu fadilaa layidhi xagga xoogga iyo fikirkaa layidhi waxa intuus samayn buu aada uga fiirsadaa waxaan maxaa ka imaan karaa oo waxaa laleeyahay markaas sidaas daraaddeed baa ilahay marka wuxuu amray inuu isagu taliyo oo gurigii maaragtay isagu amarka bixiyo kama dambaysta iyadana inay raacdo oo adeecdaa la amray haweentana dhinaca kalaa lagu fadilay ninka ugu horreysaa baa layidhi xaggii naxariistii baa layidhi ugu horreysaa xagga naxariistii bay ugu horreysaa maadaama iyada ilma ay la xiriirhayaan ilmahaas inay koriso la doonayo oo waxay yani dhibo iyaga dhibahayo o dhan dareento waxaa la yidhi dhinacaasaa loo badiyey iyadii marka waxyaaba badanaa ilmo yaro ooyayaa laga yaaba ninka uusan dhaqso u dareemin ama uusan haddiiba maaragta danqan iyadana aysan dulqaadan karin waxay kadib maaragta ay ku ordayso sidaas daraaddeed baa xaqa hooyadu leedahay waxaa la yidhi waa ka wen yahay marata xaqa aabuhu ku leeyahay ilmihi marka midba dhinac baa lagu fadilay marka maadaama nimanka xagga caqligii iyo maaragtay awooddii lagu fadilay baa waxaa la amraya in la adeeco maaha addalaaqu marataani furiinkuna waxa weeyaa la yidhi waa laba jeer furiinka macnaha oo haweenta lagu soo celin karaa waa laba jeer bal waagii hore waxaa la yidhi qabla alislaam ninku intuu doono haweenta furi jiray maa waa ku furay waa ku soo celiyey wuu iska wadayaa hadduu rabo intuu doono ilaa 20 jeer buu furahaya marka dalaaqaas islaamka dhexdiisa marka waa la xadiyey nin baa waxaa la yidhi wuxuu yidhi haween mana weligay maa haween kaa dhigan maayo waa ku furahayaa mar allaale markay ciddow sii dhammaanaysana mana iga tegaysid buu yidhi mana ku dhaqahayo mar allaale markay ciddow sii dhammaanaysa waa kusoo celinayaa saasaan kugu wadahayaaba haweenku yidhi markabaa ilaahay wuxuu yidhi addalaaqu marataani dalaaqu waa laba jeer bali bas labadaas jeer baa haweenta lasoo celin karaa fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaanin waxaana leedihiin baa la yidhi imsaakum bimacruuf waa hayn bimacruufin wanaag lagu hayo oo lagu celiyo ciddadii maaragtay dhexdeedii gabadhii in lasoo celiyo la hayo ow amase tasriixun sii dayn oo biixsaanin wanaag lagu sii daayo labadaas wax ka dhexeeya malaha qofkii in macnaha lala joogo oo niyaddu ay tahay in wanaag lagu wado macruuf lagu hayo aadan ahayn maaragtay xoogaa markii jirto fur taas waxa weye macruuf ma aha waa la xarimay oo gabadhi baa lagu dhibahayaa diraar wey taas waxaa la doonayaa imsaak bimacruuf waa in wanaag lagu hayo haddii aan wanaag lagu hayn karinna oo wanaag in lagu hayaa ay suurageli karinna waxaa la doonayaa tasriix sii dayn oo biixsaanin wanaag oo wanaag badan maarata wanaag lagu sii daayo oo maaragtay qofkii xataa ilaahay in wax la siiyo amraya wixii loo hayo maaragtay hadduu ninku maal leeyahay wax badan inuu wax fiican siiyo hadduusan waxayna waxa awoodi kara oo siiyo oo dadkii raalli kalaa inay kala tagaan ixsaan kala tagaan maadaama islaamnimo ay jirto iyo wax kaloo ka weyn oo dadka isu keenay marka waxaa la yidhi imsaakum bimacruufin fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan walaa yaxilu lakum idinmana banaanaa la yidhi haweenka markaad furtaan an taakuduu inaad qaadataan mima aataytumuuhunna wixii aada horay u siiseen shay-an shay inaad ka qaadaan ma banaana oo meherkii wax ka mid inaad ceshataan ma banaana qaar waxaa jira haweenka inay furaanna waa rabaan meherkii inay kasoo reebtaanna waa doonahayaan taas marka ilaahay subxana watacaala ma ogola waxaa la yidhi maba idin banaanaa la yidhi wixii aad siiseen wax ka mid inaad ka qaadataan hal mar bay bannaan tahay markaasna waxaa weyaa la yidhi markii xuduuddii la oogi waayo oo shiddaduna ka socoto gabadha xaggeeda oo iyadu doonaysa gurigaan iyo baabiiso iyadoo carar tahay markaas weeye marka la doonayo in maarata laga qaadan karo meher ilaa an yakhaafaa baa li inay ka baqaan mooye allaa yuqiimaa inay oogi waayaan oo ku dhaqmi waayaan xuduud allahi xuduud allah oo xuduudda ilaahay jideeyey oo gabadhiina wax laga rabay inay samayso ninkiina wax laga doonahayey oo aan soo sheegnay markii laga boqo in la fulin waayo oo arrintuna ay ka socoto gabadha xaggeeda
markaas waxaa bannaan bali in maaragtay markaas gabadhii laga soo celiyo meherkii oo laska sidaayo fain khiftum haddaad ka baqdaan allaa yuqiimaa inay oogi waayaan xuduudallahi xuduudda allaah oo labadii qof wada joogay xuduudda allah oogi waayaan falaa junaaxa calayhimaa korkooda wax xaraj iyo ismi a ma aha fiimaa ibtadad bihi waxa ay isku furato gabadha furiinka doonaysa waxa ay isku furato markaas wax dhiba ma aha hadduu ka qaataa layidhi meherkii kasoo celiyo ama xataa hadday wax kale ugu darto oo markaa waxaa ka qaataa lay wax dhiba malaha mas'aladana marka waxaa la yihahdaa mas'ala khuluc baa la yihahdaa waxaa la yihahdaa labada qofka guri wada jooga oo ninka haweenta ah labadaba xumaan waa ka imaan karaan waa bani aadam mar haweentaa toosan oo ninkaa xun marna ninkaa toosan haweentaa xun labadu waa imaan karaan ninka markii lagu xumaado oo haweenta noqoto midaan xuduudda ilaahay maaragta fulinayn yani furiinkan waxa weye halsi ma wada ahaa dadba waxay umaleeyaan inuu wada mar walba karaahiye yahay mar waxa weye waa karaahiye waa marka meesha wax cillada oo lina xuduud ilahay lagu dhaqmaayo qofka in layska furo taas waa laga fiican yahay nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam abqad alxalaali ila allahi adalaaq bi ilahay waxyaaba xalaasha wuxuu necbiya dalaaq laakiin markii haweentu ay waajibaadka ilaahay wax kamida ay furweysanayso ama xaaraanta wax kamida ay furweysanayso markaas waxaa weeye hayntii la haynahayaba dambi ka imaanaya ninkaa xataa magac baa sharciga u bixinaya dayuus baa la yihahdaa laa yadkhulu ljannata dayuus dayuusna sharciga geli maayo waa ninka haweentiisa ku wadaa layidhi xumaanta iyo xaaraanta uu ku ogyahay ku wada hayaa layidhi janno ma gela ayaa layidhi taasoo kale marka la fasirayo xadiidkan odhanaya haweenta waxaa laga abuuray feer qaloocan ee ha loo dulqaatay xadiidka odhanaysa waxaa laleeyahay waa wixii ka yar baa laleeyahay waajib lagu tumanaayo iyo xaaraan lagu dhiiranayo wixii ka sokeeya wey waa inay waajibaadka ilaalinayso xaaraantana iska ilaalinayso markaas wixii kaloo maaragtay dabeecadsi xumo iyo waxyaabo kaloo maaragtay iska naaqusoo ka imaanayo waxyaabaha loo dulqaataa laleeyahay laakiin marba haddii xuduudii lagu tumanayo waajib aan la ilaalinayn ama xaaraan la iska dhowrayn waxa weeye markaas talaaqu waa imaanaya rasuulka sala allahu alay wasalam haweenba wuxuu ku furay sir bay ka bixisay baa la yihahdaa sirtii bay bixisay macnaha arrin uu sheegay ayay ku sheegtay ilaa mar dambe waxyigu maaragtay yiri soo celi fa inahaa sawaama qawaama baa la waa gabar soon badan oo maaragtay salaad badan soo celi laga yiri bannaankii tugtanay marka saas uu kala duwan yahay nin baa wuxuu ku yiri rasuulka sala allahu alay wasalam rasuulka allahu haweentaydu gacan nin la soo aaday ba iskama celiso markaas wuxuu yiri balliqhaa fur baa rasuulka bilaabay sala allahu alay wasalam mar nin baa wuxuu ku yiri rasuulka allahu haweentaydu waa absan tahay wax xunba unbaa ka imaanaya markaa wuxuu yidhi balliqhaa furbuhi taas wuxuu yidhi suxbo iyo awlaad baa naga dhexaysa yidhi awlaad badan bay haystaa wax badan baa wada soconay markii xaggeeda xumaanta jirto oo ninku uu toosan yahay waxa u furan salaaq waa furan sharciga aan siiyey marka waa furayaa furiin axkaamta waafaqsan ayuu furayaa laakiin markii ninku xumaado oo ninku uu dhibka xaggiisa uu ka socdo haweentu dhibka u adkaysan weyda markaas waxa weye haweenta maxaa u furan iyadana isagii maadaama uu furiinkii hayo gacanta ku hayo isagiina xun yahay maxay samaynaysaa markabaa arrinta xalka laga dhigay waxa weye arrinta khulca la yihahdo waxay soo bandhigaysaa in la kala tago oo meherkii ay iska celiso meherkii baa marka laga qaadahaya markaaba waxa weye iyada kala tegahayaan mana soo celin karo hadduu mar aqbalo in meherkaa qaato oo lagu kala tago waxa weye baa-inay ka noqonaysaa waa ka tegaysaa maa dalaaqna ma ahan baa la yihahdaa haddii xataa mar damba heshiiyaan loo tirin maayo maaragtaas oo la oran maayo marbay soo kala tageen la oran maayo waxa weye khulucu waa burburin oo maaragta gurigii lagu baabi'inayo waana dhinaca haweenta markay ka socotaa ley ciwad buuna leeyahay waa wax maal la kala qaatay wey falaa junaaxa calayhimaa fiima iftadad bihi waxaa la yihahdaa shago nusuulka aayadda waxay ahayd gabar la ohan jiray jamiila binti cabdullaahi bin ubay ama ninka munaafiq ahaa dhalay ama walaashii bay ahayd labada waa la sheegaa gabadhaas waxaa qabay nin wanaagsanaa la ohan jiray saabit binu qays marka ninkaas wada dhaqankiisii dhibsatay ilaa maaragtay ay tiri aniga gaalnimo isaga baqahaya laakiin ninkaan nin fiican oo muslima wey laakiin aniga naftii uga baqay inaan kasoo bixi waayo xuquuqda igu lahaa maadaama aan aad u karaahiyo bay tiri macnaa karaahiyo weyn ay naga dhexayso sidaa markay tiri rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam beertii ma u soo celinaysaa beertii meherka loo siiyey oo markii hore saabit baxshay baa ma u soo celinaysaa markaabay tiri waa u soo celinayaa marka beertii baa saabit loo celiyey sidaa lagu kala diray khulucu marka waa sidaa iyadoo laakiin sabab jirin maaragtay oo gabadhaas wax ay qoonsanaysaa meesha oolin hadday iska damacdo maaragtay reerka inay baabi'iso waxaa la leeyahay taa waa laga fiican yahay rasuulku wuxuu yidhi almukhtalicaatu huna almunaafiqaat waa gabdhaha munaafiqaadka ale kuwa raadinayo u ordaaya waa gabdhaha munaafiqaadka ah buu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam xadiis kalena wuxuu yidhi haweentii ninka weydiisaa layo furiin min kayri maa ba'sin iyo baas jirin oo wax sababa ay jirin fa xaraamun calayha raaxatu ljanna waxa xaaraanka ah yani udugga jannada xaaraanka ah bali marka waxaa la yidhi fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allaahi falaa junaaxa calayhimaa fiima iftadad bihi tilka taa waxa weeyaan xuduudullahi xuduudi allah weeye waa wixii ilaahay xadiday oo jideyntii allah weye falaa tactaduuha ha gudbinina la yidhi
حدود إلهي حدي هيدا العليسو معه قفك مؤمن كواحد لقوت المامي فرس مالك حرن جيب كحرن حرقة انت اقارو باقة هيا بالي هذا قفك قال كأنا واحد لقيه وفرس حرقة لقفره يوكالي وميسو دونا كدعا هيا مركا المسلمين في حدود بليه لأن وجود بكرين وإنا إلاليان إلهي أمر كيسيوي مركا تاوى حدود الله بالي فلا تعتدوها قد قلنا لي حدودها ومن يتعدى غفي قدبها لي حدود الله حدود اللهنا ووحي إلهي حرمها سيكون سنة فأولئك فوق واحد هم ظالمون إلى ظالمين أباليمار ظالمين ترى خطر بكتبهم كأنما إلهي وحي لظالمين تنو ديارنا إنا أعتدنا للظالمين النار بإلهي ظالمين النار بعض ديارنا بإلهي ظالمين تمركا وكذب بقولها يا بالي marka inta waxa lagu sheegay laba jeer haweenta in la furi karo oo labada jeer bal soo cirin karo dhaxdooda oo marka ay u furan tahay faynsaakum bi ma'ruf oo tashruuc bixsan marka kadib waxa la yiri in ballaqaha haduu furo mar saddexaad soo laba jeer hore u furay haduu mar saddexaad furo fala tahillu lahu halal uma noqonayso min ba'du mar dambe hatta tankixa ilaahay si guursato iyadu zawjan ghayruhu nin kale ilaahay si guursato oo reer kale ay soo dhaqdo reer kale soo marto oo marka ay si caadi ah u kala tagaan ama ninkii kale uu ka dhinto markaa kadib waa isku imaan karaa dalay fayn dallaqaha haduu furo midka dambe fala junaha alayhima labadii markii hore kala tagtay lay junah iyo ismi korkooda ma ahan ay taraajaca ay isku soo laabtaan gormay isku soo laabanayaan in zanna wali haday danniyaan malaynayaan ay qiima xuduud Allah inay xuduud Allah ilaalin karaan oo haweentuna wixii laga doonahay ilaalin karto ninkuna wixii laga doonahay ilaalin karto ma ahan labadan maadaama isla soo jiraan isku celiyo ma sida xoolihiisa kale وين حدود إلهي أوي كران معي أنت فايدة ما لها هذا الحدود اللي قد رغمين وين مد وحمق ليس سهل وأمر كقاعدة ليس وقولي عن كبحين أو مارك من شرط إلى ليس أو وحي حفظ اللي راح الجنس وين سهل هذا أنت لقاهي من وحاول يحضن فايدة ما له اللي يرادو على سوء علي ممكن هو ينو يسوي وحي اللي قرر يقرنها هيو هدوث وحي ولي قرن وشيء أم الحدث جاي وحمانتي هاي السوق قبلي هلو علي إذا أنا ما في أنا معه إلهي وحي إن ظننا هذين ملايين أن يقيم حدود الله إنه إيه كرام إلهي كبق كرام عايده لقد دون أي لبضوضة أي سمين كرام الله إيمان كرام وتلك كاوحة ويا حدود الله حدود الله يبينها الله ووعدينها إياه لقوم يعلمون تضح جرنا إياه وكالأب أي إله الله الله إياه والحدود وعدين يا بني وحاسو دون وحوي وحان لهيسن ونعمة إلهي كيني وهد الله ليوي وقبل الإسلام كوحوي أن لا أقوم بأهيد وظلم اعتداء بالوضع الشيوي سيد حواليه بالوضع رقمي مركب الغضاء أوضا بسيحة بلغة البائنة هو أنت هدون مرة الغضاء سدعات فروه سومع لي فروه حتى عدل أنت كنت فروه سومع لي فروه وأوضا مات مركب وإنه يقول كلا يسوى مرته يقول كاسحة ما أهم باليين وقشوه سنين تورو لو نغو كاسو حوي وحاران وأرنتها جل أقابل إن ساس إذن ليهين مو بنانا ليك سمهريو وأرنتها حاران ويمار هذي إذن ليهين إني أيام يرسقبان ونيك هورا مركز هوينت لو علي أرنتها وحوي وحاران باليهذا نيك هوينت وحلالين ونيك سلنا محلل باليهذا نبي وحي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل إلهي حل عن ذبي المحللك والمحلل له يكن الله حلالين وحاجر ضد إنسان يكفك فضاده صدح هذا الغواد مثل أماته وهدنا وحي إسليه خصوصا النقطة وحال أولادنا كده حيث تلتيجرين صدح هذا الغواد موعدعين في المركز اللي يسوح عليه وحي يلان من بال رسم الشيء إنه مارت المدير أي الصمان مدير كدمنا أفروض يخلص البرلمان تاسو marka mid lagu ka hadlay عليه الصلاه والسلام ninka marka yeelahay waxa uu sameeyay rasuulku wuxuu yiri ilaahay waa lacnadii ta'ana allah al-muhallil iyo kan loo xalaalayna labadaba waa malcuuniin bali waa sharciyada ilaahay la khiyaanayo weey waa makriga yahuudiga kale nimanka la yiri shirkiga hadabanina kalluunka oo khiyaanada sameeyo kale waa tii kale marnaa ilaahay xaraam ba ka dhigay arinta wuxuu kale yiraahday rasuulku sallallahu alayhi wasallam idin sheegay yiri ala unabiukum bi taysil musta'ar urgiga la soo kiristay mataqaaniin المحلل ويرو مثل محلل كهوينك حلالية لعن الله المحلل والمحلل له إذا هل لعن المحلل يكن مارس لو حلالين لبضبا يا عمر بن الخطاب وحل يهان من أرنت هذا العين وصلي هوينتي صدح وكفر إن لو سعليه مركب وحل ينين البادي ودرب كيف وانتو تيجي وحير بور ما دورة إن لو جيو وهمين شفتي وكذب من أصدق هذا المقطع سهل وقاعد يقول جيان قري مركب لجي كذب ويري فور مايل صور بخداب الفلوسي عمر وحيري وحس إلهي فوق كان ولقى فرن بيرما حاجة اللي يجا واحد لو قاعد إنه خيانة وسيان ومارس أرنك اللي يحرمه صلى الله عليه وسلم بيوزن وإذا طلقتم النساء هديئة فرطان بالله يرى النساء هوينك
فبلغنا مركا أي جاران أجلهن وقت قوضي أي جاران وعدوا دماتهم عدوا مركا وكالدونتها مرة حاوية حيث قال فرنها هي هذي ضدك حيث كوكا إيمانها أي كلفها هذي كويناتي أما أي كيرتها ولي جارينها وحال فرنها يا وصدح بلود في سورة البلاغ الوشي هذي حاملتها هنا وحال فيها يا إلماء انت كدشان يعني وولاة الأحمال أجلهن وحلا أن يضعن حملهن انت أيوكا سيدان وحويه سيدي سيدنا marka waxa la yiraahdaa haweenka aad fartaan oo marka ay gaaraan ajalkoodii faamsikuhunna hayya la yiraahdaa haweenka oo celiya oo guri ku celiya bimacruuf oo macnaha qaba weeyo la jooga oo ama se sarrihuhunna si daayay bimacruuf wanaag si daayay idinkoo wanaajinayo oo wax siinayo si daayay wala tumsikuhunna hana haynina bari haweenka diraaran dibid aad dhibaysaan ha ku haynina leeyahay taxtu saad ugu xadgudubsan ومن يفعل كيف فلذلك كان وقعد وهينا إنه يذا كل بكليه هينتاس ودقم بأنك دوني كيف ذا يلالي فقد ظلم نفسه نفسي سيبه المية بالله هو أنك يريد كلام مرسين مركز عدوى سيد أمانة سوى كسوء علين هيا سيادة مرنا إيجاتين منا كل دقاء مرة كسيدين سيوى يلي سادة سوى سيد وكفرها يا مركز عدوى سيد أمانة سوى كسوء علين مركز تاوها يغفك وكل بها يا أما دونها إمساك أو بمعروف ومعهن تذكى إنسان كان وقت ساك إيمانها ظالمين بكسرة هو حد بداية كثيرة منافقين بكثيرة وإسلام شيئا إلهي مركا وحل بيا منها هي مركا وحل يقبضها وهيننا يضرارا لتعتدوا سوى بجوحة بلسان ومن يفعل ذلك غصب تعالى مينا فقد ظلم نفسه ومن نفسه ظلمي وخسارة يسيك صلى الله عليه وسلم محايا الآية إلهي وخلافها هي ولا تتخذوها نكيا لنا لآيات الله آياتها اللهنا هزوا كثير تكدقا لنا وساوحة ويا لي هذا نبى عرونا يوم كذا وين تقولي وحقوق بقول بنقوف أما كلكم بنقوف وحصل مركز حليري واسيس أي إله الوعي أنا يبغى ابن عباس بن نوح كثير رضي الله عنه نبى كثير لي ابن عباس وين تنصفري ويرو بقول بنصفري قال يحير صدح بالغضب صدح لك أي فجاتي بير فعشان يتدور كلنا أي إله أقصى تستوي ما وأي إله عيارك اللي تستوي ما ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا حصوصا لنعمة الله نعمة الله عليكم إذنك إذن قلي وما أنزل عليكم إيا وحى الله سودتي وعليكم إذنك فركين كسودتي ونعمة وحيان يحقا لك العدين حكمة وحوى الضوء مكان كسل بيها حصوصا لي ومن الكتاب كتابك والحكمة حكمة وما أنزل عليكم وحى الله سودتي كركين ومن الكتاب والحكمة كتابك حكمة حق الله أكيرها وحي قادقها حصوصا لي يعظكم وإن كوانينها يا به الله وإن كوانينها يا كامل واتقوا الله الله نكبغى واعلموا أغادا أن الله إنه يهي بكل شيء عليم شيء والبوامد عليم وأبنوا الله يهي أغادا بل معناها ضدك مركور الجاهلية هاي وفي بهالله كايسكاها وظلمك الاعتداء فكري وإلهي وحق أسود السي والنبي أسود ري وإله إلهي مر وحول بو أعطينا ين نعمة خصوصا لليه وإلهي كل جنادة سيد إلهي وحق الحديث وإلى لي ظل وإذا ضلقتم النساء هديئة فرسان هوينك لي فبلغنا أي جاران مركز أجلهن أجل كل جاران وعدد دماته فلا تعضلوهن عرير جنيننا هوينك أسبلي وعرير هكذا جنيننا أن ينكحن إني جرسان أزواجهن لمن خوذي هراء إني جرسان إذا تراضوا هذه هال إسلام نقدان بينهم الأحوضة بالمعروف وناج إسلام هال النقدان إذا نروح نسود الثالث الصحابي الأورنشري معقل بن يسار الأورنشري waxa la ninba gabar siiyay walaashi ah ninkii marka gabadhii muddo markay way sooyeen gabadhii furay bal marka way waliba cidadii dhamaatay markii dhamaatay hadana gabadhii soo doonay niman kalena waa soo doonay nimankii kale iyo ninkii horay u furayba intii u wada yimaadeen ninba mar buu yimid markaas waxa la yiri ninkii gabadha furay buu yiri intuu hadal khatar ku yiro maartay ku canaantay wuxuu yiri intaan ku sharfay gabar siiyay baa iga furtay waliba ku siin maayo kuna soo noqonaysa iga siiyay marka aydan soo digtay ilaahay wuxuu yiri hadii haweenka furtaan oo marka waqtiga dhamaado ajilka dhamaado cidada dhamaado laakiin ay isdoonaan labadii hore isku qaday salaata abdulhunna ciirida ka gelinina li ayaan ka xil azwaajahunna hadii nimankooda hore inay gursadaan bal ida taraadu baynahum bil ma'ruf hadii dhaxwo israalihiin halka waxa laga qaadanaya kala la yiri gabadha hadii tahay gabar guur soo martay in guur la weydiin karo lala hadli karo baa laga qaadanaya iyo aayad kale soo socota oo ka hadlaysa haweenta ninku ka dhintay la hadalka lala hadlaayo qaabkiisa laga sheekeynayo quraan ka sheekeynayo laakiin gabadha aan guurba soo marin aan kala fahmin marka guurkan arrimihiisa iyo nimanka yaani waxay yihiin isay kala yihiin aan kala fahmi karin waa in weliga mas'uulka qofka ka waa in u meel dayo ma aha iyada in loo tago iyada lala hadlo oo wax ayaan fahmin ba marka iyada lagu soo qaado
taas ma fiicno mana banaano maaha laakiin qof reer soo maray hadday tahay wax la iska doonaya garanaysa ninkaana yani inuu kasoo bixi karo in kala qiyaasi karta marka waxa weeye waa la hadli karaa bali marka waxaa la yidhi hadday dhexdooda raalli isaga noqdeen oo macruuf inay isugu soo laabtaan raalli isaga yihiin idinku ciriiri ha ka gelinina daalika kaabaa yuucadu lagu waaninahayaa man kaana minkum kiini ahaaday baa la yidhi yu'minu mid rumaynaya billaahi walyawmi alaakhir allah iyo aakhiro saxaabiga aayadda markuu maqlay ninkiiba u yeeray gabadhiibu siiyey oo ku daray baa layidhi daalikum kaabaa wuxuu yahaa layidhi askaa lakum mid idin daahirnimo badan wa adhar waa isku macluuma dalika askaa lakum wa adhar kaabaa idin daahirnimo badan wallaahu yaclamu allah baana wax og baa layidhi wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ma ogidin waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna wuxuu allah yidhi subxaana watacaala waalwaalidaatu hooyooyinku yurdicna waa nujinhayaan awlaadahunna awlaaddoodana waxay nujinayaan xawlayni kaamilayni yani xawlayni laba xawl macnaa 2 sano kaamilayni oo kaamil ah liman araada waxay u nujinhayaan ninkii araada doona an yutima inuu taam yeelo arradaacata yani nujinta wiilkiisa inuu taam yeelo yani cunugiisa in loo taam yeelo ninkii doonayaba oo u nujinayaan bale ilaahi subxaana watacaala wuxuu nidaaminahayaa maarata nolosha bini aadamka dadkii markay kala tagaan waxaa la arkaa in maaragtay haweentii inay xaamilo tahay haddana iyagoo kala maqan inay wax dhashaa laga yaabaa ilmaha marka nuujintii yani ikhtiyaarka haweenta laguma xirin say rabto maarata inay naaska beerka ka goyso hadday rabto nuujiso maahan waxaa la leeyahay markaas ninku wuxuu xaq yani haweenta ku leeyahay inay cunugaa u nuujiso waa in cunugii nuujisa la yidhi walwaalidaatu hooyooyinku yurdicna waa nujinahayaan bali awlaadahunna awlaadii dhaleen xawlayni 2 sano nujinhayaan kaamilayni oo kaamil ah liman araada an yutima aradaaca kii doonahayaa la yidhi inuu taam yeelo nuujinta yani cunugiisa waa u taam yeelahayaan bali hadday isla gartaan ka hor in laga goyo naaskana waa laga goynayaa laakiin meesha ugu shaysaa waxa weeye waa xawlayni kaamilayn wa cala almawluudi lahu yani almawluudi lahu kan loo dhalay ilmahana oo mas-uulka ah oo ninka ana waxaa korkiisa ah oo calayhi ah wa cala almawluudi baa kan loo dhalay oo lahu isaga loo dhalay cunuga waxaa waajib ku ah baa layidhi risquhunna iyaga inuu qoodiyo oo wax siiyo haweenka cunuga u nujinaya oo yani cunuga hooyadii inuu ku qoodiyo wax ku siiyo wey wa kiswatuhunna iyo labiskoodii labadaaba waajib bay ku yihiin baa layidhi bilmacruufi si macruuf ah macruufka waxa weeye sida marka dadka curfiga uu yahay oo dadku yaqaaniin macnaa waxay markaa dadku biil u yaqaaniin oo marka muslimiinta meesha jooga ama ay labis u yaqaaniin ayuu siinhayaa marka maaha isagu inuu yidhaha intaana biil waa tahay ama waa tahay kiswo iyo labis waa tahay laakiin muslimiinta markaa meesha jooga curfigooda waxa marka u yaqaaniin ama nolosha qaabkeeda meesha la joogo ayuu wuxuu awoodi karo maarata wuu ka bixinhayaa laa tukallafu nafsun laguma kalifahayo oo looma dirin nafna ilaa wascahaa karaankeeda maahan oo arrintaa waxay ka mid tahay yani fudaydka shareecada allah oo samaaxada islaam ka mid tahay ilaahay subxaana watacaala amrada marku bixinayo waxaa laleeyahay haddana naf walba awooddeedii baa loo diray laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascahaa aayad kale saas ahayd walaa nukallifu nafsan ilaa wascahaa qur-aanka dhowr meel bay ugu jirtaa ilaahay uma dirin baa leeyahay nafna ilaa wascahaa karaankeeda maahan markii laga hadlayay nafaqada maarata haweenta la siinhayaan ilahay wuxuu yidhi liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu kii lagu yareeyey baa layidhi risqiga falyunfiq ha bixiyaa layidhi mima aataahu allah waxa allah siiyey laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha allah nafna uma dirhayo ilaa maa aataaha wax uu siiyey u dhibi maahan laa tudaara waalidatun biwaladiha laa tudaara ayayn dad ku dhibin baa waalidatun yani hooyo biwaladihaa wiilkeedii yayn dad ku dhibin waa nahyi laga nahyinhayo hooyada inay cunugeeda dad ku dhibto oo tiraado la tag wiilkaagii cunugoo yar maarata oo naaska u baahan inay markaa dad ku dhibto oo markaa wiilkii naas ka goysto oo u turto maaragtay aabihii taa ma banaana waa laga nahiyay haweenta maa laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu iyo mid cunug loo dhalayna isagana inuu ku dhibo ma aha yani biwaladihi waladkiisa inuu dad ku dhibo oo hooyadii inuu ka kaxeeyo cara uu qabo haweenta inuu markaa cunugii ka dhibsado cunugii u baahan naas ma aha baa labadaa midna ma banaan wa cala alwaarisi midka dhaxalka iska lena waxaa la yidhi oo cunugaa dhaxalkiisa iska lena haddii aabihii meesha joogin isagana waxaa korkiisa abaliya cala alwaarisi waariska waxa calayhi ah oo korkiisa ah mitlu daalika arrinkaas kale macnaha inuu bixiyo risqigii iyo kiswadii inuu bixiyo haddana inuusan cunugii dad ku dhibin taabaa isagana laga doonaya fa in araadaa hadday doonaan labada qof oo cunugu ka dhexeeyo fisaalan naaska goyn hadday doonaan oo fibaam doonaan cunugii naaska laga gooye
can taraadin minhumaa iyadoo arrintaas ay tahay taraadin raalli isaga ahaansho oo minhumaa labadooduba raalli isaga yihiin wa tashaawurin iyo shawr arrin ku timid ay tahay falaa junaaxa calayhimaa wax junaaxa oo xaraja oo ismi ah korkooda ma ahaan oo ilaahay subxaana watacaala u banaynaya hadday labadu isla gartaan cunuga in laga gooyo naas mar baa laga yaabaa cunugu inuu fiican yahay caafimaad qabo oo cunadii kale maasa caanihii qaadan karo oo hooyadiina ay daciif tahay markaa isla gartaan in laga gooyo markaa waxa weye tashaawur iyo waxay ku timid iyo taraad falaa junaaxa calayhimaa wallahi wain aradtum haddii aad doontaan nabali an tastardicuu nimankaa lala hadlahayaa haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuujin u dalabtaan awlaadakum awlaadiinana oo dad kale aad u geystaan oo hooyadii ka qaadaanna falaa junaaxa calaykum junaaxa korkiina ma aha xaaladaha matalan waxaa weeye markii hooyadii wixii lagu siinahayay ay leedahay waa igu yaryihiin hala ii badiyo oo uu heli karo cunugii wax nuujiya oo lacag la-aan ku nuujinahaya ama wax yar ku nuujinaya marka waa u bannaan tahay inuu ka qaado oo markaa geeyo meeshaas isaga u fudud falaa junaaxa laakiin hadday mar isku mid yihiin baa laysan loo geenayo iyo hooyada isku ijro qaadanayaan hooyada u xaqlima wain aradtum an tastardicuu awlaadakum haddii aad doontaan baa inaad nuujin u dalabtaan awlaadakumna falaa junaaxa calaykum wax junaaxa korkiina ma ahan idaa sallamtum haddii aad dhiibteen baa maa aataytum wixii aad bixin lahaydeen oo laydinka doonahayay bilmacruufi macruuf aad ku dhiibteen oo hooyada xuquuqdeedii iyo wixii hore ay usoo nuujisay haddii aad si wanaagsan u dhiibteen oo markaa idinkoo isku fiyow aad ka qaadaan wax junaaxa korkiina ma ahan baan aayad kale ilaahay wuxuu yidhi yani wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa bali haddii aad isdhibsataan baa layidhi oo aad ku heshiin weydaan maaragtay nuujintii waxaa la yidhi waxaa u nuujinaysaa haween kale u nuujinaysaa layidhi wattaqu llaha allahna ka baqa waclamuu ogaada ana allaha allah inuu yahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun rabbi basiiro ah oo arkahaya waxaad samaynaysaan oo qofkii gafaya oo daalim ah iyo qofkii toosan oo taqiya ilahay inuu kala og yahay oo acmaashiinoona ilahay basiir inuu yahay ogaada baa layidhi marka arrintan waxaa weye waa arrinta ah ridaacatul maaragtay sabiyi weye cunuga nuujintiisii weye yani irdaaci weye marka irdaaca waxaa ku xiga xadaana ku xigta xanaanayn yaa haynaya cunuga marka haddii naaskii laga gooyo kadib haysmadii yaa iskale iyadana mas'alo kale weye oo mas'aladan waa nuujinta qaarkeeda waxa weye hooyadu waa inay nuujisaa layihi cunugii oo weliba 2 sano u nuujiso kaamil ah hadduu aabbo doonayo 2 sano inuu nuujiso haddii marka ka hor ay gartaan in laga gooyona waa u bannaan tahay baa layidhi haddii isagu meel kale u arko in cunuga maaragtay haween kale inuu caana badan tahay ama ay ka raqiisan tahay hooyada waxay qaadanaysana waa u bannaan tahay in cunugii qaado xagga loo geeyo oo loo soo nuujiyo inta waa u furan tahay allahna ha laga baqa layidhi labada qofba macna ogaadana ilaahay waxaad samaynaysaan inuu arkayo oo qofkii wax xumaynayo xad gudbaya allah subxaana watacaala inuu arkahayo ogaada la leeyahy waxaana laleeyahay wiilka labadiina waa dhasheen in la isku dhigo macna marka mas'alada nuujinta waxaa ku xiga mas'alada la yidhaha xadaana waa xanaanaynta waxaa iskale baa layidhi hooyada iskale inta ay madax bannaan tahay o aan la qabin mar hadday reer yeelato xaqii waxaa yeelanaya aabihii baa yeelanaya oo haween dacwo a u tiri nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxay tiri wiilkaa yarka ah anaa uurka kusii jiray markuu yaraa kadibna anaa nuujin jiray tiri haddana aabihii baa u xiraa inuu iga qaado markaaba rasuulku wuxuu yidhi anti axaqu bihi adigaa u xaq le buu yidhi maa lam tankixii mar haddaadan reer lahayn oodan guursan inta aadan guursanayn buu yidhi oo aadan reerka lahayn adigaa u xaqle laakiin mar hadday reer yeelato markaas isagu inuu daayo mooye isagay ku xiran tahay macnaha waxaa kaloo laga hadlaa mas'alada la yidhaahdo ridaacu sabiir qofka weyn haddii la nuusiyo ma noqonaysaa qofka uu nugay inuu hooyo u noqonayso oo yani maxaarimtii halkaa inay ka xaqiiqoobayso taa waxaa weeye xadiistu waxay sheegayaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu arrintaa aada uga hadlay oo uu yidhi ridaacu waxa weeye waa yaraanta inama radaacatu min almajaaca inta loo baahan yahay oo ilmo cunuga yarka u baahan yahay naaska iyo laa ridaaca bacda fisaal naaska goyn kadibna ridaac ma jiro xadiis saasaa jira oo maarata rasuulka sala allahu alay wasalam laga warinayo xadiiska marka laga warinayo oo saxiixa ah oo saalim mawla abi xudayfa rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu u idmay inuu nuugo haweentii ninkii mawlihiisa ahaa oo abi xudayfa haweentiisii sahla bintu suhayl xadiiskaaba dad waxay u deliishanayaan qofka weyn markaa inuu isaguna haddii uu nugo in sidaa inay dadka u noqonayaan qaraabanimadii maaragtay oo maxaarimtii loo noqonayo kaana alimaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay xaaladdaa waa xaalad khaasa oo rukso ah oo markii xaaladaas kale timaado ama dadkii xaaladaas kale haysato keliya idinkaa iskale uu leeyahay ma aha wax fudud oo cid walba maaragtay cidda kale iska nuugi karto ma aha إعداد وتركيب الصور الفقير إلى الله أكرم عبد الفتاح علي فما أغضأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله وشيخ البرهان